qabiilka Rajburi waxay leeyihiin hab ay odayaashoodu ay buuriga u qeejiyaan. qaar ka mid ah geeljirayaasha Hindida ayaa awrtooda bara in ay u xaraaroodaan qiiqa sigaarka, waxayna qiiqa sigaarka kaga afuufaan sanka si awrku uu ula qabsado. haddii qabiilka Rajburi ay caan ku yihiin ka ganacsiga milixda, waxaa jira qabiilooyin kale oo iyaguna dega tuulooyinka iyo agagaarkooda, waxaana ay ka xoogsadaan sancada gacanta. waana dad birmaal ah, waa tumaalo si wanaagsan birta u tuma. rag iyo dumarba gacantooda ayay kaga xoogsadaan oo ay biraha u tumaan, inkastoo ay dadkaasi kolba meel iyo tuulo u guuraan. haatan waxaynu soo gaadhnay qabiilo reer guura ah oo aan aqoonin in maalinna meel lagu nasto. waana qabiil had iyo jeer iyagu socod iyo geedi ku jira. qabiilkan reer guuraaga ah ee Indiya ku nooli oo la yiraahdo Ribari waa qabiilooyinka tirada yar ee waddankaasi Hindiya ku nool oo weliba ku jira noloshii qadiimiga ahayd. qabiilooyinka lagu magacaabo Ribari waxay ku dhex wareegaan deegaanada dhulka gobolka Rajasthan ee dhulweynaha waddankaasi Indiya. xataa xilliga ay roobabku ka daayaan dhulka gobolka Rajasthan bilaha August iyo September ma nagaadaan dadkani oo waxa ay halkaasi ka sii wadaan geedigoodii. waa dad aan aqoonin deganaanshaha iyo nasashada. dadkan reer guuraaga ah ee ka soo jeeda qabiilada Ribari ee waddanka Indiya waxa inta badan ay dhaqdaan xoolo badankoodu uu yahay adhi. meel kasta oo baad leh oo ay tagaana waa ay uga faa'iidaystaan xoolahooda, waxaana dadkaasi lagu tilmaamaa kuwa ugu xoolaha wanaagsan waddankaasi Indiya marka loo eego dadka kale ee ku dhaqan. waayo waa kuwo subax walba loo daaqsin geeyo dhul cusub iyo ugbaad leh. dadkan reer guuraaga ahi waxa si fiican ay uga faa'iidaystaan oo ay iib geeyaan caanaha, subaga iyo haraga oo ay ka helaan xoolahooda. mararka qaarkood waxay iib geeyaan mid ka mid ah xoolahooda oo ay ka helaan lacag ay baahiyahooda ku daboolaan. waa dad si fiican u yaqaana sida awrta loo rarto oo alaabooyinka loogu qaato. rarka geela waxaa si fiican u yaqaana dumarka oo si dhaqso leh u rara. dadkani habeenna kuma dhaxaan meel ay u hoydaan. dadka reer miyiga ah ee ka tirsan qabiilada Ribari waxaa lagu yaqaanaa oo astaan iyo calaamad u ah cumaamad casaan ah oo ay madaxa ku duubtaan. caruurta yaryar iyo naylaha waxaa la dul saaraa awrta, sababtoo ah iyagoo aan xamilaynin geediga iyo socodka badan ee ay gelayaan dadkaasi. dadka qaarkii ayaa iyagu waxaabay rartaan dameeraha. markaad aragto iyadoo awrtii la xidhxidhayo oo geedi dheer la gelayo, waxaa maankaaga ku soo dhacaya sidii dhaqanka u ahayd dadkeenna oo ahaa dad xoolo dhaqato ah oo kolba geedi dheer u gala meesha caws iyo biyo leh. qabiiladan Hindida ahi ilaa iyo maanta waxay ku jiraan noloshii bilowga ahayd ee waayihii hore lagu jiray. runtii in xoolaha lagu faano oo la dhaqdaa waa horumar ballaaran. xooluhu waa batroolka keliya ee Soomaalidu ay dhoofiso. haddaba baldaawada qiyaas dhaqanka dadka reer guuraaga ah amaba Ribari ee waddankaasi Indiya iyo kan dadkeenu ay leeyihiin, halka ay isaga eeg yihiin iyo weliba faraqa u dhexeeya. geediga iyo socdaalku maaha wax fudud, waa nolol adag. hase yeeshee haweenka ka soo jeeda qabiilada Ribarigu
waa bir finiin ka hadhay. iyada ayaa hawsha culayskeeda dusha u ridata. iyada ayaa wax walba diyaarinaysa, haddii ay noqoto biyo dhaaminta, karinta cuntada, rarka awrta iyo weliba soo ururinta xaabada. haweeneyda reer miyiga ah ee waddankaasi Hindiya waa mid aan ka dhicin hooyada Soomaalida ah ee reer guuraaga ah.